nabad nabad la helay wanarurako hadii nabad 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 la helay wanarurako dhammaan nolol raaxadu ku noolaanaya hadii nabad 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 la helay wanarurako hadii nabad 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 la helay wanarurako dhammaan nolol raaxadu ku noolaanaya talaada nacab kuman yajabne naxligii baxyoos nabkaadnaye udubtiraatayo nabarada damba nabogsodayo waa nafisnaye talaada nacab kuman yajabne naxligii baxyoos nabkaadnaye udubtiraatayo nabarada damba nabogsodayo waa nafisnaye nabad nabad la helay wanarurako hadii nabad 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 la helay wanarurako dhammaan nolol raaxadu ku noolaanaya wasaaraha habdhowraha golaha aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kusimaa wasiirka amniga walaalkay wasiir xagaa ayaan hadda arkayaa dhammaan hogaamiyaasha haweenka ee halkan ku sugan iyo hay'adahooda ay ugu horeyso hay'adda SWDC Mamzara iyo tiimkeeda dhammaan hay'adaha kale ee halkan ku sugan gaar ahaan hay'adda Samor oo halkan joogta programkan qayb weyn ka ah saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore si gaar ah labada hay'adood oo hadda noo daadihinaya SWDC iyo Seven Work waxaan si wada jir ah uga mahadcelinayaa agaasinkan heerka sare ah ee lagu xoojinayo haweenka iyo nabadgelyada nabad dhiska iyo xalinta khilaafaadka waxaan farxad ii ah inaan arko mashruucan oo socday sida la ii sheegay muddo sanad iyo bar ah tababaro kala duwan ay ku soo qaateen qaybaha kala duwan ee haweenka gabdhaha saxaafadda ganacsatada iyo ururada bulshada rayidka si gaara gabdhaha yaryarka ee ka tirsan doorka haweenka iyo nabad dhiska amniga iyo xalinta khilaafaadka maanta marka muhiim ay noo tahay sanadkan aan joogno xukuumadda dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha inaan si wada jir ah uga wada qayb qaadanay hanaanka nabadda iyo amniga oo aad qayb ka ahaydeen waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto iyadoo aan ognahay in haweenka Soomaaliyeed ay muruq iyo maskax ummadooda la garab taagan yihiin markastaba inaan markaas dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dhammaan dadka Soomaaliyeed lagu jiro sidii dalkani looga xoreyn lahaa arxan laawayaasha diidan ee nabadda oo dadkana aan u ogolayn dhibaatada dalka ay ku hayeen muddo dhowr iyo 10 sano ah dhammaanteen inaan garab istaagno nabad dhiska iyo xalinta wixii khilaafaada ee ka jira bulshadeena dhexdeeda amniga waa u muhiim nolosha bini aadamka taasaana lagu gaari karaa horumar marka maadaama haweenka Soomaaliyeed muruq iyo maskaxba ay dalkooda iyo dadkooda la garab taagan yihiin
ugu horeyn waxaan sii garab istaagi doonaa ciidamadeena qalabka sida oo aan leenahay garabkiina soconaaye geeshka iyagu guuleysta waxaan maanta markaa haysanaa fursad madaxweynaha dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo uu nagu horkacayo qorshihiisa hortawinta u leena ay tahay aragtidiisii uu ku imaaday dalkan in laga xoreeyo arxan laawayaasha sidaas la midana barnaamijka xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isagana ay ugu horeyso howlaha aan ka hadalno arrimaha amniga iyo xasilinta waayo horumar kasta iyo qorshe kasta oo dawladdu u dejiso xukuumaddan oo ay fulinayso oo ku xusan barnaamijyadeeda amni la'aan iyo nabad la'aan lama gaari karo idinkuna waxaad tihiin dadkii waqti badan oo aan dawlad jirin soo geliyay juhdi maskaxdaas iyo muruqa aan sheegayno marka maanta dhamaanteen waxaa nala gudboon inaan iska leexino caqabadaas dhowr iyo 10 sano naga hortaagneyd horumarkii aan ku soo tiir iyo tacabeelnay si dadkeenna u heli lahaayeen oo aan hal meel uga soo wada jeesano ciribtirka arxan laawayaasha khawaarijta taa marka waxay dhalinaysaa annaga oo muruqeena maskaxdeena haween ahaan aan uga hortagayno inay helaan mustaqbal dadkeena mustaqbal caruurteena oo si wanaagsan ugu noolaadaan dalkooda ugu dambeyn waxaan rabaa inaan hay'adda Civil War iyo iyada horta gaar ahaan aan uga mahad celiyo tababarkii ay gacanta naga siiyeen guddiga kumeel gaarka ahaa dhismaha awlanka haweenka leadershipka haweenka Afrika shabakadii oo Soomaali cutubkii Soomaalida aan wadno asaaskeedii ayagoo noo soo marsiiyay hay'adda SWDC tababarkaas oo u dhacay si fiican maantana marayo heerkii ay soo dalban lahaayeen haweenkeena maskaxda iyo muruqa iyo maalkaba isku darsaday oo wajiga quruxda badan ee Somali chapter ku matali doono kan Afrika waxaan idinkula dardaarmayaa inaan kulligeen u wada shaqeyno u wada howlgalno nabad dhiska amniga iyo xasilinta iyo khilaafka oo aan ka wada istaagno waad ogtihiin gabagabadii hadalkayga waxa bilaabanaya wajigii labaad ee arxan laawayaasha inaan gacan ka geysano garab istaaga ciidankeena firxadka dhuumalaysiga ay ku soo gali doonaan magaalada Muqdishona aan garan waaga guryaheena uga saarno wabillahi tawfiiq